baxsashadii barbaarta xabsiga jasiiradda Alcatraz ay ka baxsadeen dibna looma arag. daawashada barnaamijyada iyo aflaamta ay ka mid yihiin Shawshank Redemption iyo Prison Break waxay ka dhigtay baxsashada xabsiyada mid u muuqata arrin fudud oo aan ka duwaneyn sheeko xiriirta carruurta loogu sheekeeyo, laakiin xaqiiqadu sidaa way ka duwan tahay. daawade intaayna bilaabin muuqaalkeenna maanta hubi inaad like saartay muuqaalka, sidoo kalena aad kanaalka ku soo biirtay. hagaag waad saartay soo maahan mise weli maadan saarin? fadlan saar, sababtoo ha dhiirigelin ayay noo tahay middaasi. mahadsanid. haddaba aynu sii wadana muuqaalkeenna. khasab ma aha dadka ka baxsada xabsiyada inay daawadeen muuqaalada iyo aflaamta ku saabsan baxsashada xabsiyada. marka koowaad waa dad xorriyadoon ah inkastoo ay dambiilayaal u badan yihiin. marka labaadna waa dad caqli oo la yimid qorshe la hirgelin karo. haddaba waxaa jira xabsiyo adag oo loogu talagalay in lagu xidho kuwa ugu khatarta badan dambiilayaasha. waxaa ka mid ah xabsiga jasiiradda Alcatraz oo 2 mayl u jira xeebaha magaalada San Francisco. waxa uu ka dhisan yahay jasiirad 4 jiho ay biyo ka xigaan. waxa uu ahaa qalcad ciidan xilligii uu socday dagaalkii ahliga ahaa ee Maraykanka 88 sano ka hor, waqti uu Maraykanku si weyn ula dagaalamayay criminal gangiska oo ahaa kooxo abaabulan oo ka ganacsada walxaha sharci darrada ah. waqtigaas ayaa loo bedelay xabsiga ugu ammaanka badan adduunka oo idil. dadka xabsigan soo maray waxaa ka mid ahaa madaxdii ugu caansanayd kooxaha gangiska sida Al Capone iyo Giorgio Kelly. tan iyo markii casriyeynta lagu sameeyey xabsiga sanadkii 1934 waxaa fashilmay 14 isku day oo ay maxaabiistu sameeyeen. 36 qof ayaa isku dayay inay mar bannaanka uga soo baxaan qalcadda xabsiga loo bedelay ee Alcatraz. dhammaantoodna waa la soo qabtay marka laga reebo kuwa naftooda ku waayay isku dayga halista badnaa ee ay sameeyeen. biyaha badweynta Atlantic ee 4 dhinac uga wareegsan xabsiga, dhismaha la adkeeyey, taawarada ilaalada ee ku yaala dhammaan dhinacyada xabsiga, xeerarka adag ee loo dejiyey maxaabiista oo lagu daray kormeerka iyo tafshiishka joogtada ee maalinlaha ah ayaa suurtageliyey in aysan baxsan jabaabiirta ku xidhan xabsiga Alcatraz. sheekadeenna maanta waxay ku saabsan tahay 3 nin oo ku guulaystay inay ka baxsadaan qalcadda Alcatraz. 3dan sheekadeedu waxay noqotay hal hiraale jahawareer ku riday cid walba oo isku dayda inay fasiraad ka bixiso sida ay uga baxsadaan iyo meesha ay ku dambeeyeenba. Frank Morris waxaa lagu soo xiray xabsiga Alcatraz bishii January 1960 kadib markii lagu helay dambi la xiriira dhac hubaysan oo uu ka geystay qaar ka mid ah bannaanka Maraykanka, iyo sidoo kale inuu ka fakaday xabsiyo kala duwan oo ku yaala cariga Maraykanka. waqti dambe oo isla sanadkaas ah 24 bishii 10 1960 waxaa isna xabsiga lagu soo xiray in lagu magacaabo John England. horaantii 1961diina waxaa laga daba keenay walaalkiis Clarence England. 3dan nin waxaa ka dhaxaysay aqoon hore oo waxay isku barteen mid ka mid ah xabsiyada Maraykanka, waxaana lagu xiray qolal isku xiga. halkaas ayayna ka bilaabeen dejinta qorshe ay kaga fakadeen xabsiga Alcatraz. Frank Morris oo lagu yaqaanay inuu yahay nin caqli badan ayaa hoggaanka u qabtay qorshaha howlgalka baxsiga. maxbuus kale oo lagu magacaabo Allen West ayaa ka saaciday nimanka baxsashada. bishii 12aad ee sanadka 1961 ayay bilaabeen qorshahooda kadib markii nin ka mid ah uu helay miishaar kala jaban oo ay u adeegsadeen inay banneeyaan daloolka hawo qaadashada ee qolalkooda. waxayna ku guulaysteen inay furtaan meelo uu dadku mari karo. daloolka waxay ku qarin jireen walxo aan laga shaki karin sida boorsooyin ama karaatiin. qolalka ay ku xiran yihiin gadaashooda waxaa mari jiray jid ciriiri ah oo aan la gelin cidna aysan ilaalin. waxay dusha uga bixeen qolalkii ay ku xirnaayeen. halkaas ayayna ka samaysteen meel ay ku diyaarsadaan wax kasta oo ay u baahnaayeen si ay xabsiga uga baxsadaan. sidoo kale halkaas ay kala socon jireen dhaqdhaqaaqa ilaalada xabsiga, waxayna barteen xilliyada ay isbedelaan ama kormeer ka sameeyaan. shaqadaas waxaa dhinac socday diyaarinta qalabkii ay kaga gudbi lahaayeen badweyntan ku hareeraysan xabsiga. alaabo kala duwan oo ay maxaabiista iyo barxadda xabsiga ka soo xadeen ayay isu keeneen. jaakadaha celiya roobka, jawaano karaatiin iyo qashin la isku talay ayay ka samaysteen doon yar oo ay uga gudbi karaan badda. sidoo kale waxay heleen alwaaxiyo ay ka dhigteen bedelkii lagu kaxayn lahaa doonta. tuubooyinka hawada siiya qolalka xabsiga ayaa u suurtageliyay inay u gudbaan qaybta sare ee dhismaha xabsiga. hadda waxa u muuqda cirka. baxsashadana waxaa kaga gudban gidaar dheer oo 30 fiid ah iyo badda ku wareegsan xabsiga oo 2 mayl keliya u jirta xeebaha magaalada San Francisco. wax walba sidooda ayay u daayeen, waxayna sugayeen fursad ugu macquulsan ay kaga baxsan karaan xabsiga. waxaa la soo gaaray 12 Luulyo
sannadkuna waa 1962 kooxdu waxay u diyaargarowday inay baxaan marka laga reebo Allen oo caqabad kala kulmay inuu jabiyo daloolkii hawada ee qolkiisa waxayna ku qasbanayeen inay isaga tagaan saddexdii soo hartay xagga sare ee xabsiga ay isugu tageen qalabkooda ayayna urursadeen waxayna ka degeen xagga dambe ee dhismaha xabsiga silga dheer ee xabsiga ayay fuuleen waxayna dhanka waqooyi bari kaga degeen biyaha badweynta Atlantic oo ay ku tuurteen doonidii ay gacmahooda ku samaysteen markii la gaaray aroornimada 12 bishii 6 1962 kormeerkii joogtadaha ayaa tegay qolkii ay deganayeen saddexda nin waxaana la arkay inay maqan yihiin goboshoodana waxa ay saareen busto loo ekeysiyey bini'aadan kaasoo u suurtageliyey inay qaldaan qaybta ilaalada ee habeenka waa aaminsan in nimankan ay qolalkooda hurdaan ragga baxsaday waa Franka Morris oo ahaa maskaxdii ka dambeysay baxsashada iyo walaalaha Clarence iyo John howlgalkana waxa loo qorsheeyey si ay ku dheehan tahay maskax heel dheer waxa ayna sameeyeen boombale dadka u eeg oo ay ku qaldeen ilaalada xabsiga ee habeenkii kormeerka ku sameysay qolalka maxaabiista isla aroortii ayaana la bilaabay baaritaan loogu talagalay in lagu soo qabto ragga baxsaday ee saddexda ah intaa wixii ka dambeeyey wararka la helay waxa uu noqday kuwo malaawaal ah marka la eego dhinaca ay uga bixeen xabsiga talo ma gaareen jasiiradda Angel mise ku guulaysteen inay ka gudbaan gacanka Marin mise dabaylaha xoogan iyo mowjadaha kacsan ee badda ayaa galaaftay noloshooda dad kala duwan ayaa dadaal ku bixiyay inay ogaadaan xaqiiqda laakiin cidina kuma guulaysan inay caddayso nimankani ay nool yihiin isla markaasna ay ka gudbeen badweynta barigana caga dhigteen sidaasna ay ku bilowdeen nolol cusub sidoo kale lama helin meydkooda ama caddayn kale oo tilmaamaysa in nimankani ay dhinteen aragtiyo kala duwan oo ku saabsan kiiskan ayaa abuurmay kuwaasoo midkoodna aan lahayn caddaymo xoojinaya kadib 17 sano oo furnaa galka baarista ee kooxdan lama helin hal raad oo tusinaya inay nool yihiin ugu dambayn waaxda baarista ee FBI-du galka baarista ee saddexda nin waxa iska xirtay 31 Diseembar 1979 sidaas ayuuna liiska raggani ku noqday hal xiraale aan laga jawaabin iyo su'aal furan oo sugaysa in maalin jawaabteeda la helo haddaba maxay kula tahay daawade ma ku guulaysteen raggani inay xabsiga ka baxsadaan isla markaasna ay bilowdaan nolol cusub mise waxay ku naf waayeen mowjadaha kacsan ee badda hoos noogu reeb aragtidaada mahadsanid